السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعانو وناكسن داود يلكسو دوادا برنامج كيني فيد وناكسن وإن فلا إنو عاوة كحيس بدنان دونا برنامج دي آدهوري وداوتين يدو إنو عاوة كسو قادن دونو مالين تحسك دبالدك جعيلك waxaa caawa taariikhdu tahay 14 Febraayo loo dabaaldegayaa qaybo ka mid ah caalamka maalinta xuska jacaylka diyaar garowga bulshada waa sidee saameyn intee leeg baysa ku leedahay wariyaheen afkaadho maxamed axmed ayaa booqday xarumaha qaar oo ka mid ah xarumaha ay dhalinyaradu isla markaas ka labistaan laguna gado dharka maalinkaas la xirto daawasho wanaagsan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال برنامج كيني aan ku falanqeynay maalinta 14 Febraayo oo adduunku uu asteeyay maalinta jacaylka waxaynu ku soo gaadhnay suuqa Ibgaaro oo ku yaala xaafadda Islii gaar ahaan jidkeeda 12aad waxa suuqaasi ku sii dhex yaala dukaanka Hani Qorraxay Collection Shop isaga ayaan u dan leenahay sababtoo ah waxa lagu gadaa dharka dhalinyartu xirato waxaynu falanqeynaynaa waa dhalinyartu sida ay u wajahaan maalinta jacaylka ee adduunka daawasho wacan سيدا ليلي يغيس قالوا لا سيمايو ودا كامل لدو قلبي قاد اللولتا سيدا ليلي يغيس قالوا لا سيمايو ودا كامل لدو قلبي قاد اللولتا لما يشحرير الدوم كيلو ميو هذي قيقو لما adigaygu lamaan lama yeesha xidhiiri dumarkii lumiyo adigaygu lamaan alla adigaygu lamaan luquntaadiyo laafyahaaga leegleeg socodkaaga ayaa ilaabkay luquntaadiyo laafyahaaga leegleeg socodkaaga yaa ilaabkay السلام عليكم عليكم السلام walaalkay soo dhaw waan dhawahay haniye daawadayaal waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii dukaankii Hani Qorraxay هني بليور مو في عنابو ما شاء الله كريم سودو دكان كيجا واد معتصنت هاي معتصنت وانا صوب وقتي ما شاء الله واسوس عني حوغا لكن وضمنتي وسوقنا الحمد لله هني waxaan rabaa su'aalo ku weydiino maadaama adigu hadda mashquul oo shaqo ku jira aan ku nimid suurtagal ma tahay laba su'aalo inaan ku weydiino ma weydiin kartaa welcome su'aalo oo furan yihiin intaan aad iyo aad u mahadsantahay waxaan ku weydiin rabaa haniyay bal maanta waxaan ku jiraa maalintii 14 Febraayo waana maalintii jacaylka sidoo aragtaa 14 Febraayo والله أنا ما آمنسني 14 فبراير ويا أنا حآمنسن لبض قفة استعر مالن داينين يتهاي مالن شعير لكن مالن جارة وعلامة جارة له أنا ما آمنسني. أوكي هني واحد كذا دكان دركة. أوكي. جارهان دركة أو أي حدان دني يردا. صح. أما لما أنا استعر. I know. مشغول. كيف هو ركب المدر أنت مالن تنجعلك أدونك وأستي 14 فبراير. ما والله كله مشغول بايدي ويشرتها. بايدي وحوالي قطعت كستم قوي معدن. مرك لكن ده هو مشغول وسكتير لكن أنا مالن مالن آمن سنة معهن. المدر أنت مشغول أيوة 14 فبراير. فمو مايا. وحنا كودي هني ما جرت ديار جرو أدو قشة عيدها أو كلا درب الله يسوع أديكتها. sanadka cusub oo kale sidoo kale iyadana adeegyo leh loo soo adeego maalintan jacaylka 14 Febraayo ma jira diyaar garow aad u sameysay ama adeegad gaar ugu soo gaday si lagaaga qaato maalintaas maya wax aan ugu talagalay 14 Febraayo ma jiraan laakiin anayna iidoo kale soo adeegto oo wax cusub oo niyo akeeno aan isheeg waxyaalo badan keeno waa jeclay laakiin maalintaas wax iqaasoona oo iyada ugu talagalay ma jiraan dad baa adeeganaya sida indhahaygu qabanayaan waxa yaala halkan dhar oo af Soomaali uu ku qoran yahay I know aan daawadayaasha qumaad u tuso waxa ku qoran Leyle iyo Qays yes kala badan bay leeyihiin I know dharkan
ما أديك سمية أنا سمية أو أديك هذا البضاء إني مجعل له وصل مجعل له وقريس أوكي مركب ما مالين تنجعل كان قلت لك شيء مسوا أديك عادي ما هو أديك عادي ما دام واحد على استي يعني ليلي قيس وعدد الصوماليات ومقرش ستوري كلها يعني مجا الصوماليات مركب مجا عودنا كورس قاضو إنه مقرنا يساعد دد استشعل أو ليلي قيس مقرنا يساعد شعيلة ودنتين sometimes لده مركب مجا كورس صوماليات وسو قاضو أن الصومالي أنت ناقوني أمبرة فنسمي وما تنت يعني مرق بقى مسوا دمر دركني ما يدمر يرد بويلهم واللي بسيب الله بنا ياشا أو تلاقي لما أنا ياشا أو تلاقي إن أدي أدباد ما تنتهي هني وقدام بنتي ما أنت أو 14 فبراير أما أفريقيا طبعا كبيش اللغات أجون كنا هو قنصية مالتي جعلك صح dadka Soomaalida ah dhalinyarada maxaad kula talin lahayd qaab noocay ah inay maalintan u wajahaan maya wallahi anigu waxaan leeyahay maalin ma garanaysaa Febraayo hadii la dhaho maalin February ama maalinta jacaylka hadii la dhaho kullay dee magacaas anigu kama helin waayo waa magac nin gaal ah sameystay oo maalinta calaamadaystay maalinta jacaylka inuu ka dhigo marka anigu waxaan leeyahay aaminina in time labadii qof ee isjecel baha aaminta inay bayday maalin jacayl tahay maalin walba inay maalin jacayl tahay yes aad iyo aad baad mahadsan tahay bal waxaan isku dayaa inaan dadkan adeeganaya ama customka ah aan su'aalo weydiiyo iyagana okay walaal magacaaga walaal magacayga Triig baa la yiraahdaa Triig waxaad ka adeeganaysaa dukaankan oo ala lagu gadayo dharka lamaanaha hani qoraxay collection shop marka waxaana maanta ku jirnaa maalintii jacaylka 14 Febraayo ما maalintaas aad u adeeganaysaa mise adeeg kale iska caadi adeeganaysaa maya walaal dukaankan hani qoraxay collection soo hore u sheegtay dharka lamaanaha lagu iibiyaa waxa kale oo lagu iibiyaa fashionka dumarka qamaarada u dambeeyay marka aniga customer ka ahay qamaaradan saa u jeedo qamaaradana markasta oo la keenan soo raadsadaa adeeg uma adeeganay maalinka jacaylka waa hada maxaad gadatay hadda waxaan gatay waa kana halkan igu riday waxaan gatay breeskan iyo qamaarkan iyo kareemadan oo maaragtay loogu talagalay sensitive skin maadaama meel kululna aan joogno aad baad Triiga u mahadsan tahay walaal su'aal ma ku weydiin karaa waxaad joogtaa dukaanka hani qoraxay shop dukaankan waxa lagu gadaa dharka lamaanaha ama dhar inta badan dhalinyarta waxaan ku jiraa maalintii 14 Febraayo maalintii jacaylka adduunka u asteeyay adeegaaga ma waxaad u adeeganaysaa 14 Febraayo mise ما يولال أنا قفوتين وما أذيجنا دري لهاي بانو أذيجنا ماشان مالي والبوان كأذيكتا محايا لو حي كانت ألعابون قنعية كانت مر والبح حجاب هذا فاشن كا نسيدا شاتيال كوكلته أو ستايله فاشنا محل يرهداي ساكوين كا فنان ذا لمانها دركنا ولا مانها ضدك استعال قاتان ده وحفر بدن بيكانتها ومحل كساس سواء كأذيجنا مالي كستا لكن 14 يوحس ما أذيجنا waxaan arkay adiga oo qaadanaya jaakadan ay ku qoran tahay qayle liis leyle iyo qays marka waana maalintii jacaylkan ku jirnaa dharkaad qaadanaysan dhowr xabaan ka qaatay hal kaliya kama qaadanin tan iyo kuwa kale fara badan baan ka qaatay saan jeclahayna kuwa kale fara badan aan ka sii qaataan rajaynaya maxaa yeelay waa wax wanaagsan oo bulshada u wanaagsan dadka dhan ay maxay tahay wada jecel yihiin marka adeegaagii waxa uu isku soo beegmay waqtigaagii shopping iyo waxa isku soo beegmay iyo maalintii jacaylka ee adigu maadan anigu bil walba meeshan aan imaadaan ka adeegtaa waxaygaan ka qaataa markasta wax quruxsan oo maxay tahay qanciyo bay keentaa oo dukaamada kale laga helin aad iyo aad baad u mahadsantahay sida layla iyo qays kanu la simayo wada kamalado qalbigaadu lulata sida layla iyo qays la simayo wada kamalado qalbigaadu lulata lama yeeshe xiriir dumarkii lumiyo adigaygu lama sida layla iyo qays kanu la simayo wada kamalado qalbigaadu lulata sida layla iyo qays kanu la simayo wada kamalado qalbigaadu lulata lama yeeshe xiriir
markii lumiyo adigaygu lamaan adigaygu lamaan adigaygu lamaan assalaamu calaykum mudane وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga ولا عبد الكريم علي إبراهيم cabdikariin waxaynu isugu nimid goobtan dukaanka ah hani qorraxay goobtan saad u aragtaba waxaa lagu gadaa dharka dhallinyarada ama lamaanayaasha adiguna waad ka adeeganaysaa maantana waxaynu ku jiraa maalintii jacaylka ee 14 febraayo adduunku uu asteeyey marka adeegaagu ma mid ku qotoma maalinta jacaylka mise waa mid uun ما ولا دكانك ودر في عم بيالله مرك ما دام أساس تهي وهدت هديد أنا وقت لقلي درتد بانو يمد إنان كيبسده كم حصية مالك جعلك hadiyad ahaan baad ka gadanaysaa laakiin ma aha maalintii jacaylka ما هن مالك جعلك هديد أهان بانو قضى يا قف يقول قالي ما ربع إنان دركو قضى مرك ما حربي كنا ندان iyo surwaal shaati baan rabo qof ugu qaaleena uu qaado waad mahadsan tahay aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay inaad qof walaalka ah oo waliba saan ku arko dharku waa dhar rag aad u geyso hadiyadku qaaliya mise waa dumar maalintan jacaylka aan maanta ku jiro maxaad kula talin lahayd Soomaali badan baa xusaysa dad baa laga yaabaa inay maxaan ku dhahaayay awtino iyo bixitaana sameeyaan maxaad kula talin lahayd qaab noocee ah inay u wajahaan كل waxaan kula talin lahaa kulay maalinka jaceelka anaga waa qof walba waqtigu jaceelka qabtay bay maalinkaas bay u tahay ma ahan maalinka Valentiinka ee leeyihiin waxaan u aaminsanahay gaal baqtiyay laakiin waxaan jeclaan lahaa maadaama ay dadka ay xusayaan inay saxuusino dukaamada intay imaadaan oo sheeg wax ayaga anfacayo dhar masa waxyaabo kale oo anfacay inay ku gataan lacagaha ay khasaarinayaan iyo meelaha la aadayaan marka waxaan oran lahaa aan kula talin lahaa qof walba oo maalinka uu qofka uu jeclaaday maslaamaanihiisa oo hela maalinkaas uu naxaxuso aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaadna siisay daawadayaasha tala fiican waxaana filayaa in ay anfici doonto Soomaali fara badan talada uu walaalkeen siiyey wuxuu yiri qof walba in lacagta la khasaarinayo ama outing lagu aadayo inaad wax ku gadato dhar iyo wax kale oo ku anfacaya aad iyo aad baad mudan u mahadsan tahay luquntaadiyo laafyahaaga leegleeg socodkaaga ayaa luquntaadiyo laafyahaaga leegleeg socodkaaga ayaa aragtida dadweynaha iyo sida ay u arkaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadda Islii waxa microphone kala dhex qaaday wariye Faysal Bishaar Faysal Aligo magacaagu saddexaad adoo ku bilaabaya Ramaas Cabdo Cabdi sideed u aragtaa xuska maalinta jacaylka 14 Febraayo ku beegan caawa oo kale ma sha Allah waan soo dhaweynay soo wanaagsan inkastoo jacaylka oo nolosha adduunka uu yahay waan soo dhaweynay taageero buuxan u ahay aad ugu taageersantay maalinta jacaylka aad oo jacaylkaada ayaa ku beegan waqtigaas maalinta intaas laasaas jacaylka oo ka aadanbo maalinkeeda ku aadan ma sha Allah ma ka qayb galaysaa bandhig faneedka showga ay qabtaan fanaaniinta habeenka 14 Febraayo waan ka qayb galay insha Allah hadda horta ay noqoto nasiib u yeesho aan la kulmo waan ka qayb galay maadaama ay tahay maalin ay ku soo beegantay maalinta jacaylka Febraayo waan ka qayb galaa bulshada Soomaaliyeed maxaad kula talin lahayd siday u arkaan jacaylka xuska maalinta Febraayo jacayl qorto waan taageersan aad iyo aad u taageersan waan soo dhaweynay waana furaha nolosha adduunka jacayl haduu jir la'aan ilama dhalan lahayn oo aabay ma dhalan lahayn waan taageersan waan soo dhaweynay insha Allah aad waa ku taageersantahay aad u mahadsantahay magacaagu saddexaad adoo ka faa'iideysanaya fursadan qaaliga magacaagu saddexaad Cali Bashiir Maxamed Cabdi sideed u aragtaa xuska maalinta jacaylka 14 Febraayo oo ku beegan maanta maalintaas waxaan u arkaa qof walba maalinta uu jacayl u bilaaway مسو سند جورا عمل وها ما أنت جعل كيس وها ما لك إذا وتعلم ما أنت وتعلم لكن في براي ما نقول ما هذا وما تيجي ما فبتم براي ما كمان أنت هذا اللي ودي والدقي ما أنت اللي ودي والدقي ما أنت جعل الشوق أي قبطان بنك فنيت كهوين هذا 14 فبراير عمل هذا الشوق أي قبنا أيام فنانين قرباء يكون جودها الجوجبة ما كغيب جليسة يعني خاصة نفسان دي كم غيب جلاي كم غيب جليسة كم غيب جلاي أنا بقول متاجر سنة إسلام كم متاجر سنة حد كل سنة اللي هذا دليل الصومالية دي جعلك 14 فبراير ودي والدقي
waxaan kula talinaya qof walba maalintuu jaceylka u bilaabi maalintiisa maalinta jaceylka u dabaaldegaya marka ninba waqtigiisa ha raasada leedahay waqtigiisa ha raasada aad u maasantahay magacaaga saddexaad adoo ka faa'iideysanaya fursaddan qaaliga brother magaciidu maxaa waaye awseen genge daamu sideed u aragtaa maalinta xuska jaceylka ee 14 Febraayo saaxiib adwaldaga no adwaldagaysa waa ka qayb qaadanaysa waa qayb qala saaxiib ha marka maalintaada ku beegan 14 Febraayo la isla waa ku beeganta min saaxiib waa buwa saaxiib markii marka bandhig faneedka showga habeenka ay qabtaan fanaaniinta kuwa qurbaha kimid kuwa halkan jooga marka ma ka qayb galaysaa habeenka ka qayb galaameyn waxaan fadhiyaa front hore fadhiisan faraa marka waa kuraasta hore u fadhidaa ha bro hore fadhiya saaxiib marka maxaad kula talinayd sida adiga camal dadka soo dhaweynaya bulshada Soomaaliyeed maxaan soo dhaweyn lahay brother safac soo dhaweynaa brother maxaad kula talin lahayd bulshada Soomaalida kuugu taageersan maalinta jaceylka maalinta jacayl Soomaa safac tarsin brother maxaad kula talin lahayd ma tara kale ma hay brother aniga aad u maasantahay thanks sideed u aragtaa xuska maalinta jaceylka 14 Febraayo ku beegan adigu sama aaminsan tahay maalinta xuska jaceylka caalamka sida uu yaqaano Valentine Day la dhahayo kullu waa maalin jirta oo caalamku inta badan u dabaaldegaan laakiin aniga ahaantayda ma taageersan mana soo dhaweyn sababtuna waa maxay sababtu waxay tahay maalin walba jaceyl waa joogaa dhinaca maalin walba jaceyl waa jira leedahay marka maalin gaar oo leedahay maanta oo maalin gaar aad qaybsatay maalin gaar wax dhihi karo maalin ka soo calaamatanna ma jirto waa iska caadi maxay ahayd aniga maalin walba waa maalinkayga jaceylka maalin oo igo ma jirto maalin ku go'an malaha is leedahay marka bulshada Soomaaliyeed oo kugu taageersan maxaad kula talin lahayd in jaceylka jiro bulshada Soomaaliyeed jaceyl siisaba waa iska jira oo dadka dhan way wada aaminsan yihiin laakiin dadka reer galbeedka waxaad moodaa inay maalmo gaar ah asteysteen ayaga ay saarteen oo ay asteynteen leedahay diiradda ku saaraan ba maalinta saarno ay maalinta jaceylka waxaa moogtahay ayagana sidoo kale waxaa jirto taasna ayadana dadka reer galbeedka maadaama diin inta badan joojisa aysan lahayn kuma ma dhahay yinsan maalinkaas u dabaaldegin ayaga qodhoodii haddaan tooda u raacno ma kulliga reer galbeedka dhan ma 14 Febraayo jaceylkooda bilowday kulli hadda maxay u madan taariikhda dib loo raac maalintaas oo Valentine Day dadka soo asaasay waa dad xagga ka soo jeedo dadkaas baana inta badan isticmaala magacaaga saddexaad adoo ku bilaabaya cabdi Fataax Maxamed sideed u aragtaa xuska maalinta jaceylka ee 14 Febraayo adigu see ma ku taageersan tahay niyahow sanadadan iskuma wanaagsan arrimaha jaceylka u wareen haddii aan fikirkayga ka dhiibtana maalinta loo asteeyey jaceylka ani ahaanteeda yacni ma ihi ruuxiisa maalintaas iyada sababtan waa maxay dhaqankayga kama mid ah dhaqankaa ka mid ma aha balse adiga maalinta ku gaar oo 14 Febraayo taada ma is leedahay maya aniga maba lihiba yacni dhaqan ahaan uma lihi sidaa awgeeda marka ma xiiseyn adiga marka kuma jirto dadka u dabaaldegahay maalinta ayada ma xiiseyn sanadadan iskuma wanaagsanin arrimaha jaceylka bandhig faneedka ama showga ay qabtaan fanaaniinta kuwa qurbaha ka yimid kuwa dalka sii joogi oo habeenka Febraayo caawa ay ku beegan tahay ma ka qayb galaysaa showgaas niyahow ani ka cadaxkin ahaan ma ihi ruux jaceyl maxaa la dhahay fanaaniinta sanadkan dadka hore aan ka mid ah inkastoo bidhaanteeda ay u muuqato ruux maxaa la dhahay qarnigii 21aad nool haddana qarnigii 20aad ayaan wili la jaan qaadayaa oo la socda aniga maxaad kula talin lahayd bulshada Soomaaliyeed ee u dabaaldegaysa maalinta jaceylka 14 Febraayo aragtideeda aniga sida ay tahay ma aaminsani laakiin waxaan dhihi lahaa maadaama ay waxaan dhaqankeena ku jira ay tahay hal iska daayo yacni wax muhiim ah maahan haddaysanba dhaqankeena ka mid tahay marka waxaad leedahay nin walba maalintiisa jaceylka bilowda maalintiisa maalintaas run ahaantii yacni waxa kani wax diin ku salaysan ma ahan dhaqankeena kama mid sida awgeed marka waxaan ku talin lahaa in la iska daayo sideeda bannaan aad u maasantahay adiga mudan magacaaga saddexaad adoo ka faa'iideysanaya fursadda qaaliga ah magacaygu waa Maxamed Axmed Khaliif sideed u aragtaa xuska maalinta jaceylka 14 Febraayo adigu see ma ku taageersan tahay aniga kuma taageersan sababta wax micna inay tahay dadku ku soo kordhin ma maleysid marka maalintaada leeday xuskaada maalintaada leeday xusaysa ama 14 Febraayo kuma beegna is leedahay maalinkii kuma beegna ma ka qayb galaysaa bandhig faneedka ama showga ay qabtaan fanaaniinta kuwa qarbaha ka yimid kuwa dalka sii joogi oo showga habeenka 14 Febraayo caawa ku beegan ay ka qayb galaysaa adiga kama qayb galayna sababtana waa maxay sababta waxa micna leedahay ma laha aan faa'iido lahayn micna ma laha no khasaaro mooyaane wax faa'iido ma ka faa'iideysa bulshada Soomaaliyeed maxaad kula talin lahayd oo ka qayb galaysa ama u dabaaldegaysa 14 Febraayo micnaha iska dhaafaan dhihi lahay oo wixii lacag kharash ku bixin lahayn ayagoo sadaqaysto wax u dhaafan ma laha aad u maasantahay magacaaga saddexaad adoo ka faa'iideysanaya fursaddan qaaliga ah Marwajeel Aadan sideed u aragtaa xuska maalinta jaceylka 14 Febraayo caawa ku beegan adigu see ma ku taageersan tahay
maya waan kasoo horjeedaa taa sababtuna waa maxay sababta waxaa waaye diinteena ma ogolo wixii diinteena ogoleen inaan taageerno khalad waaye marka adiga 14 Febraayo kugu beegna maalintaada jaceylka maalin gaar ah isleedahay u dabaaldegaysaa dabaaldeg dhan oo jaceyl loo dabaaldegay waa ka hormaarsanaya 14 Febraayo iyo taariikh kale waxay ahaato marka jaceylka waa hal isjeclaado meeshiisa hal iskaga jooga isleedahay laakiin dabaaldeg maya bandhig faneedka ama showga ay qabtaan fanaaniinta oo caawa oo kale oo 14 Febraayo ma ka qayb galaysaa may sababtana waa kasoo horjeedaa inaan ka qayb gal diyaar ma u maadaama hadii jaceylka weyn loo dabaaldegay diidinta showgina waa lamid aad isleedahay maxaad kula talin lahayd bulshada Soomaaliyeed ee ka qayb galaysa showgaas ama u dabaaldegaysa jaceylka 14 Febraayo Soomaalida macal muslimiinta dhan waxa ay lahaa wixii diinteena ogolay inaan u dabaaldegno khalad waaye marka xal iska dhaafo aad u maasantahay magacaaga saddexaad adoo ku bilaabaya magacaygu waa Xamdi Xuseen Maxamuud sidaad u aragtaa xuska maalinta jaceylka 14 Febraayo caawa ku beegan adigu see ma ku taageersan tahay waa la isjeclaan karaa laakiin xuska waa ka soo horjoodsanahay ma ku taageersanahay maalintaada kuma beegno 14 Febraayo marka taada u dabaaldegaysaa taydaan ku dabaaldegaya ma rabo inaan 14 Febraayo u dabaaldego waayo diinteena ma qabto in loo dabaaldego marka ma ka qayb galaysaa showga ay qabtaan fanaaniinta oo caawa oo kala Febraayo oo dhacay 14 Febraayo maalinta jaceylka adigu see ma aadaysaa ma ku taageersan tahay maya ma ku taageersanay maadaama aan ka hor imaadsanahay maalintaas xuskeeda ma u socday show ay dhigayaan bulshada Soomaaliyeed ee kugu raacsan ama kugu taageersan adiga kaaga soo horjeeda maxaad kula talin lahayd oo maalinta jaceylka 14 Febraayo u dabaaldegaysa kana qayb galaysa showga ay qabtaan fanaaniinta waa ku qiimeynaya aragtidaas ay la qabaan waa ka hormaadsiin ayaga way kugu way taageerayaan waa in ka qayb galayaan showgaas miya qof walba aragtidu leeyahay kama hor imaadsanayo qof walba aragtidiisu wadanayo maxaad kula talin lahayd inay iska dhaafaan maadaama ay diinteena qabin muslim ahaan haddaan nahay aad u maasantahay waatay daawadeel waxaa sidoo kale inoo soo gudbinaya aragtida bulshada ku dhaqan magaalada Gaarisa wariye Bashiir Daahir Balal afar iyo 10 Febraayo sanad walba caalamka waxaa loo asteeyay Valentine Day oo macnaheedu yahay maalinta jaceylka taasoo gabi ahaanba laga xuso wadamada Islaamka iyo kuwa aan Islaamka ahayn ayadoo maalintaas la soo bandhigo bandhigyo faneedyo dadka u dabaaldegayana wada xirtaan dhar casaan ah oo noqday astaan u gaar ah maalintaasi haddaba dadweynaha ku dhaqan magaalada Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa wax ka weydiinay aragtidooda ku aadan maalintaas iyo xuskeeda 14 bisha February waxaan leeyahay hambalyo gacmo furan baan ku soo dhaweynayaa anigoo ah dhalinyaradii hore cuslaatay ani bari baan gabar jeclaado waxaan u tiriyay gabadha waxaan idhi horta aragtida iftiinka iyo ubaxbaxay la moodiyay 14aadkii habeenkii isniintii arooskii inshaarada adigoo meel ubax la joogaan inan yahay arkaaye ma ifkaad ku noolayd aqalkeed u hooyataa ubax kugu salaamay aad bal iiga guddoon waxaan rabaa inaan ka wacdi geliyo dadka Soomaalida khaas dadka muslimiinta waxa la ilaa Valentine Day anagu dad islaam aan nahay waxaan rabnaa gabdhaha waliba khaasatan inay ka baxaan arrinta ayada saas aan doonaynaa Bashiir Daahir Balal barnaamijka fiid wanaagsan ismaamulka Gaarisa 14 Febraayo waa maalin ay dadku fikrado kala duwan ka aaminsan yihiin meelo badan oo kamid ah caalamkana looga dabaaldego balse aan wax badan uga ogaano Miski Maxamed Caato oo stuudiyaha igula sugan aan ku wareejiyo waa tahay golad 14 bisha Febraayo waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay maalinta jaceylka adduunka waxaa la isu diraa salaamo oo waxyo hadiyado kala gedisan ay isu diraan lamaanayaasha isjecel haddaba maxay tahay waxa ka dambeeya dabaaldegan iyo xafladaha maalintan oo kale waa su'aal jawaabteedu wax badan la iska weydiiyo waxaan soo ognahay in bisha Febraayo maanta oo kale ay noqotay maalin jacayl kalgacayl iyo xiisa la xuso taariikhdan ayaa oranaysa Valentine waxa uu ahaa wadaad kaasoo diinta Katolika faafin jiray qarnigii 13aad markii boqorkii Claudius ee Rome ka talin jiray uu go'aansaday in askar laga qoro ragga aan xaasaska lahayn oo kaga mamnuucayo dhalinyarada yaryar kuwaasi oo ahaa kayd ciidan oo ku ilaashado awoodiisa Valentine ayaa iska indhatiray waxa uuna bilaabay inuu guursado gabdhaha yaryar ee quruxda badan kuwaasi oo si qarsoodi ah u guursan jiray haddaba markii sheekadii Valentine ay soo shacabay in uu hoos u qabo dumar badan waxa uu boqorkii amray in xabsiga loo taxaabo isla markaasina dil lagu xukumo
habeenkii dhimashadiisa ayuu Valentine u qoray warqad gabadh aad u qurux badnayd oo uu dhalay ilaaliyay xabsiga. Gabadhaasi jacayl xad dhaaf ah ayuu u qaaday, waxaana la oran jiray Julia. warqadaasi oo ciwaan uu kaga dhigay ka timid Valentine. markii dambe waxaa loogu magac daray Valentine, waxa uuna ku aasan yahay kaniisada lagu magacaabo Praxedes ee magaalada Rome ku taalo. taariikhda Valentine ayaa lagu sheegay in gabadha Julia ay ku beertay geed ubax casaan ah xabaashiisa, kaasoo waqtigan loo adeegsada calaamada jacaylka iyo saaxiibtinimada. sanad waliba 14 Febraayo maanta oo kale adduunka inta badan ayaa lagu xusaa, isla markaasina fariimo jacayl, xiriir iyo saaxiibtinimo la isku dhaafsadaa. mahsanid miski. haddaba daawadayaal, qoomiyad walba waxay leedahay dhaqan u gaar ah oo ay isku maamusho diinteeda ka sokow. haddaba dhaqankeena Soomaaliyeed wax sal iyo raad ah ma ku leedahay maalinta xuskan jacaylka? waryaheena Maxamed Faarac Caag ayaa soo wareysay aabba Soomaaliyeed oo ku nool xaafadda Islii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال maanta taariikhdu ku beegan tahay 14 Febraayo 2018 waa maalinta adduunka looga dabaaldego maalinta jacaylka. bal dhaqankeena Soomaaliyeed muxuu ka qabaa maalintaasi? haddaba waxaan soo booqannay xaafad Soomaaliyeed ku taal magaalada Nairobi si aan wax u ogaano barnaamijkani. bal ila socdo daawad yaal dhamaantiin. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ومحسنتي دمانتين ببوقشيدين سنوصو بوقتين. waan kaa mahad celinayna sida wanaagsan aan naga aqbashay codsigeeni ahaa inaan ku wareysano. bal uu horeen daawadaasheen la wadaag magacaada oo saddexan. magacaygu waa xasan sheekh yuusuf. xasan sheekh yuusuf. sideed u aragtaa maalinta jacaylka ee ku beegan 14 Febraayo dhaqanka Soomaaliyeed muxuu ka qabaa? anaga horta islaam ahaan jacaylka magii la dhahaa waxaad ka soo bilowday jacaylkeena aadan iyo xago. sax. kadib wixii ka dambeeyay waa ninba jacaylkiisa maalintaas aad jacaylka ashayo siis u hayo moogay wax la dhaha ma jiraan 14 Febraayo waxa ay diinta sheegtay. صح بطاطا وحلده wax ka jira malahan maalintaas jacaylkeena ninba dhaartii jacaylkiisa waa nin walba maalintiisa صح waxa ka baxsan malaha oo yaani 14 Febraayo la dhaha ma jirto. صح adduunka laakiin maalin gooni loo astaamiyay waa qalad saylata. صح waa qalad gabi ahaan bar waa qalad. waxaa jira dhalinyaro badan oo shooga fanaaniinta qabanayeen aadaan habeenkii xilli dambe ay ka imaadaan, waxaa laga yaabaa inuu dib ku soo gaaro. maxaad kula talinayd dhalinyaradaasi? dhalinyartaas waa fikradaas waa qalad tahay si dhaqan ahaan bayna ilmo yaani kala iska ciyaaraan ama duurka galaan ama cid ka maqnaadaan wax macquul ku jiro ma waxaan kula talinayaa inay ka wantoobaan waxbarashada iyo diinta u soo laabtaan. صح adiga caruur iyo xaas baa leedahay. صح hadda hooygaadan ku sugannahay gurigaada. صح caruurtaada ma u fasaxdaa goobaha fanaaniinta iyo showga lagu qabto sida maanta oo kale? caawa hadda waxaa jirta xaflad weyn oo Febraayo 14 lagu xusay maalinta jacaylka. haddii aan sanadkan ku dhamaanayo oo showga kala la qabto caruurtaada ma u fasaxdaa? ma loo fasaxay caruurta inay aadaan meelahaas oo wax akhris ka baxsan ama guriga yaani ma inay aadaan loo fasaxay. صح gabi ahaantooda waxaad ku tarbiyanaysaa diinta islaamka iyo midda maadiga xoodaha haye. waxaa jira dhalinyaro habeenkii aadaan showgan oo kale caawa dhacayo iyo kuwa kale hore aan kugu sheego. waalidiintooda laga yaabaa inay kabar qabaan ama inay ka dhuntaan. waalidiintaas maxaa kula talin lahayd? waalidiintaas waxaan kula talin lahaa inay ka reebaan ilmahooda waxaas yaani anugaadoosa adig ka warqabin oo yaani ama yaani aska warqabto iska tagayo meelaha showga kala aaday waa qayb muslimada kamid tahay. صح marka waalidiintaas waxaan kula talin lahaa inay ilmahaas ka reebaan dhaqankaas. maxaad kale oo baaq halkan aad ka jeedinayd aad u dirahayd Soomaali weyn dadka islaamka ah? maxaa baaq oo maalinta kaga aadan 14 Febraayo shakhsi ahaantaada kaga aadan aad u dirahayd maadaama aad ka faa'iideysanayso jaaniskan aan kaga faa'iideynayno anagoo baahinta umarsiin doona hawada hadduu Allah idmo? waxaan ugu baaqaa Soomaalida dhammaan inay jirin wax Febraayo 14 jacayl la xusay waxaas inay jirin oo jacaylka aas yahay ninba sida u soo mara diinteena yaani ay jacaylka noocaas ka shaqeynayeen. صح
bedelkeeda maxaa lagu buuxinaa meeshaas bedelkeedii waxaa lagu buuxinaa in masaajid la galay in qur-aan la akhriyay in diinteenna hore loo wada sax taasaa lagu buuxinaa taasaad soomaalida ugu baaqeen sax xasan aad baan kaga mahad celinaynaa waqtigaada sidaad noogu hurtay oo aad naga aqbashay waraysigan aad baad u mahadsan tahay waa mahadsantiin adinkaada maanta daawadayaal waxaynu soo gaarnay gabagabadii barnaamijka haddaba diinteenu islaamku maxay ka qabtaa xuska maalinta jacaylka adduunka bashiir daahir balal ayaa xafiiskiisa ku booqday mid ka mid ah dallada culimada muslimiinta ee dalka Kenya kale waxaan booqnay xafiiska golaha sare ee muslimiinta Kenya waxaana wax ka weydiinay waxay ka qabto diinteena suuban ee islaamka ah maalinta xuska jacaylka iyo saameynta ay bulshada ku leedahay kow waxay saameyn ku leedahay shay ilaahay uu sabanaynin baa dadka aad u banaynaysa ruuxa xafladda sameynaa shay ilaahay uu banaynin diinteen islaamka ugu banaynin yaad ummadda yaad ka gadaysa tarwiij iyo advertisement baa sameynaysa yacni waxaad dadkii aad ka becgelinaysaa ood ka maaragtay aad qaabilsiinaysaa wax uu islaamka beri ka yahay islaamka beri uu ka yahay yaad qaabilsiinaysaa marka bulshada dhaawaca koowaad ay ku keeni waxaa weeye shay diinteenna ay dhigaynin baa dhex keento ood oga dhigaysa wax jiro yaad ood ka gadaysaa waa qodobka saamaynta ay ku leedahay dhaqaale ahaan yay saamayn ugu leedahay dhaqaale ahaan yay saamayn ku leedahay oo 2,000 buu ruux bixinaya muxuuna ku bixinaya meel ilaahay uu ogolayn lacagta masaakiinta agomada u bannaan yaa u baahan iyo garoobada iyo wixii la mid ah saddex waxay kale oo maaragtay mujtamac ay ku keenaysaa waxaa weeyay dhaqan guur iyo akhlaaq xumo meesha rag iyo haween aan bahoomo ahayn baa isku keentay oo haweenkii oo qaqaawan oo xabadka taag oo dhar guduudan qabaan oo intay soo qurxiyeen baquurkii cadarka soo marsadeen wiilal dhaqaalo maartay si casiirku u cabaayeen oo dhaqaalaysanna meeji bay joogaan caawa dhan baa meeja raqsiga la sameynaya iyo niikiska la sameynaya dadka inay zina ku dhacaan yaa maaragtay yaa meeja ayada yaa ka dhalan karta bashiir daahir balal barnaamijka fiid wanaagsan ismaamulka Gaarisa aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena bashiir balal qodobkaas ayaa ugu dambeeyay guud ahaan barnaamijkeena inuu ku falanqeynay xuska maalinta jacaylka barnaamijka waxaa soo saaray Sadiiq Maxamed Kilaas dhinaca kaamiradu waa Afakaadiyo DJ Kafi farsamadu waa Nuur Maxamed anagoo ah Gorad Maxamed Cali iyo Miski Maxamed Caatan oo nila socodsiinay tan in hadii ku kulma doono barnaamijkan mid lamid ah waxaan ku dhaafaynaa sidaas fi amaanillah